صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، waxaan إن شاء الله تعالى raacinayaa kelimadii دكتورka شيخ علي xadiiskii uu noo tilmaamay 3 منجيات و3 مهلكات. saddex arrimood wuxuu yidhi waxbay halaagaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inoo tilmaamay sheekhu, saddexna waxbay badbaadiyaan. waa saddex arrimood haddaad la timaado waa ku badbaadaysaa. waxaan raacinayaa marka haddii badbaadadii iyo halaagiiba laga sheekeeyey, shuxun mutaac wa hawan muttabac wa icjaabu almar'i binafsihi, in aan tilmaamo saddex kafaara gud ah uu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam u raaciyey 3 kafaaraat wa 3 darajaat. lixdaas ayaan aniguna idinku darayaa in sha allahu tacaala, ama idin xusuusinayaa. waa arrimo muhima, si koobanna aad u xifdin kartid oo u xusuusan kartid. 3 kafaaraat buu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam, saddex arrimood dembiyaday kaa dhaqaan. dembiyada aynu gelayno maalintii oo dhan, xan maxaa, dembiyaal maxaa, waxyaalaha aynu ku dhacayno, saddexdaa arrimood haddaad badsato waa cibaadooyin, ilaahay loola yimaado cibaadooyin weeye. haddaad badsato way dhaqayaan dembiyada. 3 kafaaraat, kafaara gud weeye. isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih, midka u horreeya waa weysada oo la hagaajiyo. weysadu waa cibaado aad iyo aad muhim u ah. qofka mu'minkaana ama gabadha mu'minadaana waxaa nebigu calayhi salatu wasalaam ku tilmaam inuu weysadiisu had iyo jeer ay dhowran tahay 24 saac. walaa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'min. weysada ma dhowro, ma ilaaliyo ilaa mu'min mooye, qof mu'mina mooyaane. manacana munaafiqu ma ilaalin karo weysada. had iyo jeer inuu daahir ahaado, diyaar yahay. qur-aan buu akhrisan karaa, waa cibaadaysan karaa, ilaahay buu xusi karaa. haddii geeridu u timaadana weysuu qabaa, waa daahirsan yahay. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, waa diyaar. marka taas waxaa ka dhalanaysa mar kasta oo weysadu kaa jabto ama aad xaajo gudato, waxaa wanaagsan inaad weysaysato oo weysada raaciso. aadan weyse la-aan ka soo bixin baytulmeyga ama musqusha ama meesha lagu weysaysto, adoo weyse qaba mooyaane. weysadana inaad dhammaystirto, khaasatan waqtiyada dadku ka caajisayaan ama qabowga ama kulaylka badan ay tahay oo weysada qofku dhibsanayo, ajarkeedu wuu sii badan yahay. markaasoo kale kusii dadaal, sidaada waqtigan ku jirnoo kale qaboobaah. weysadu marka waa kafaara gud. mar walba aad weysaysato dembiyadu way dhaqaysaa. indhahaaga, wejigaaga, gacmahaaga, lugahaaga, waxay dembi galeen bay dhaqaysaa. isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih wa kathratu alkhutaa ila almasaajid. arrinka labaadna waxa weeye tallaabooyinka masaajidka loogu socdo. tallaabo walba dembi bay midiridaysaa, midnaha darajay kuu qaadaysaa. marka masjidka inaad mar badan u socoto, subax iyo galab usii socoto, waxa weeye dembi dhaaf bay keenaysaa. ha ka wahsan. midda saddexaad, intidaaru salaati bacda asalaa. salaad baad tukatay, salaad kalea sugaysaa. maqrib baad tukatay, cishaa sugaysaa oo dheraraysaa. oo intii aad sugayso ama qur-aan baad akhrisanaysaa ama dikriga ilaahay baad ku jirtaa, ama waxa weeye salaaddii baad dheraraysaa, sugaysaa. goorma salaaddii imanaysaa, waad dhowraysaa, waqtigeedii baad ilaalinaysaa, weysadeedii baad ilaalinaysaa. marka salaad baad sugaysaa. salaada sugitaankeedaasu waxa weeye dembi dhaaf weeye. haddaad masaajidka fadhidid ama meesha cibaadadaad ku cibaadaysatay, gurigaaga xataa gabadhu ay fadhidana, dembi dhaaf baa socda. dee maqribka meesha ku tukatay, salliga ku tukatay, ay ku sugayso, ku adkaarsanayso oo ku cibaadaysanayso, qur-aan ku akhrisanayso, ilaa salaaddii kale ay ku tukato cishaha ama casarkii ku tukato, maqribkii ku sugayso, ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf buu uga dhigaya. saddexdaas arrimood waa 3 arrimood oo dembi dhaafka keena. waxaynu nidhi isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يا كسو عليناي، يا كسو عليناي. كو مدة كواد محيطها
weysada oo la ilaaliyo oo la dhamaystiro oo dadka qaar baa weysada boobsiiya oo meelihii la rabay in la dhaqo iyo aan dhaqin weysada inaad dhamaystirto khaasatan waqtiyada qaboobahay midda labaadna salaada aad salaad ku sugto midda saddexaadna masaajidka aad u socoto taas waa saddexaas waa kafaaraat buu nabiga calayhi salaatu wasalaam kafaara gud weeye oo dembiyo badan baynu leenahay laakiin maalin walba meeqa jeer weysaysanaysaa masalan ya 5 salaadood horta haddaad mid walba u weysaysato waa 5 salaadood markastoo aad musqusha gasho haddaad 24 saac 5 jeer oo kala gashana waa 5 goor oo kaleeto haddana aad weysaysatay marka 10 goor maalintii haddaad weysaysato ama ka badanba habeenkii iyo maalintii alxamdulillahi rabbil caalamiin dembiyo badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga dhaqayaa dhibicda u dambaysa biyaha ayay raacaya dembigu saddex arrimoodaa jira markii dembiga lagaa dhaqo waxaad u baahan tahay darajaad baa lagu tartamaa aakhiro qof walba xaggee buu darajadiisu joogtaa ya 20% 10% 30 40 50 100 jannadu waa 100 darajo inna fil jannati 100 daraja buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ya يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات علم درجات بو إلهي كركو قاعدة تذكر وكسر رئيس درجوين كمحال وكسب هذا صدح الرموض شاقي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا صدح فضوض ورقي يدمر للسماين كرو ميدا كواد بالغبص إفشاء السلام سلام تبادي ذاتك ولا الله مسلم كقفة تقاني قف هذا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سيلي محل قبري بريدينتا ويدينتا بوقشدا يا ورسيغا تليفونك ورستي اما سيتوس يعني ددك ولاalaha muslimiinta inay isbooqdaan ziyaartaan isa salaamaan khaasatan dadka wax u dhaxeeyaan qofka walaalka ama walaasha wax kala dhaxeeyaan waxa wanaagsan salaanta ku bilowdo salaantu waxay keenaysaa maxab awala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum dadkii hadda cadaawad iyo xin iyo xasad iyo waxba kala galaya waxa soo dhan waxa dhaqa salaanta dhaqada qofaad kala go'deen oo muddo kala maqnaydeen hadda salaanto ama wacdo ama soo booqato uu ku farxi maralka qaarkood waxa la yahay inuu siiraado qofkan hebel ama heblaayo kuma soo booqan jirin kuma soo wici jirin maxaa dhacmaanta ma dhagar buu wadaa ma wax kale uu wataa ma dan kale uu leeyahay ma dan kalena adiga ma lihid ilaahay dartiisu baad u salaami ilaahay dartiisu baad u wici marka salaantu waxay keentaa maxabba iyo kalgacal adigana ajar bay ku siisaa darajaadna kor bay kugu qaadaa labada kala xanaaqsan ama kala caraysan ama isgooyeyna kan salaanta bilaaba ayaa darajo sareeya oo darajaad kor loogu qaadaa marka hadhihin aniga ma duliya aniga ma doonay aniga ma wax ka raba aniga ma wax baryaaya aniga maxaan u wacaya iyada heblaay hadaan soo wicin maxaan u wici maxaan ugu salaami maxaan ugu tagi ma adu ilaahay wala xisaabtamaysa darajaad ba bankigaaga ku dhacaya aakhiro darajaad ku dhacaya waxba qofkan ha eegin adduunyada marka salaantu waa darajaad afshu salaam bi faafiya nabiga calayhi salaatu wasalaam wa at'imu at'am qodobka labaad oo darajooyinka lagu kasbadana waxa weeye cuntada la quudiyo dadka cuntada si miskiinka faqiirka qofka wadada maraya martida من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه مرتدى ولا كرامية مساجدك ولا جيا دتك باهن دتك عن قريها لهين دتك ضوابك أو قريها أو حلاقو كرين وإسكت قاعد جيسن مساجدك الجيا وإني يمادن عشاء يصف هدي جرتو هبين والبايس صو حاضرنا يا صلاة دين وتكنا يان مقرني سا مركا حالها عنتذا هلا قوديو هلا بديو بولي النبي عليه الصلاة والسلام maxaa darajaad baad ku kasbanaysaa cuntadu aad iyo aad bay u ajar badan tahay qodobka saddexaad oo u dambeeyana waxa weeye as-salaatu bil-layli wan-naasu niyaam waa qodob dadkoo dhammi aanay kari karin laguna tartamo inaad habeenkii tukato marka dadku markay hurdaan marka wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaam salaatul leylka salaada la yiraahdo oo salaadaha tatawuca ama sunnada ugu fadli badan oo ugu wanaagsan ilaahayna dadkeeda jecel yahay qof walbaana aanu samayn karin iska yaalyaal iyo istustusna aan ahayn oo habeen mugdiya qofku qolkiisii iyo gurigiisii u joogo ayuu ku tukanaya maxaa ugu yar maxaa ugu weyn laba ragco haday noqoto xataa saddex ragco 4 5 6 intay noqotoba awoodaada intay tahay ha ka qadin way macno wasalaatu bil-layli wan-naasu niyaam dadku markay hurdaan haddii aad habeenkii isrogto ama aad baraarugto kac weysayso laba ragco tuko ilaahay bari waa waqti wanaagsan khaasatan
هبينك وقتك سأقدم بيا ثلث الأخير من الليل إلهي سبحانه وتعالى هبين والبا ثلث كأقدم بيا قيبتا قدم بيس هبينك أيورا يا ويدي سنة يدم بدافع ندم بدافع يا وحي ويدي سنة ينسيا يا نحريس ويدي سنة ينسيا يا إلهي سبحانه الجنة يا ويدي سنة ينسيا marka waa waqtiga dadka wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay bariyaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala gacmaha u horsadaan taasna wuxuu leeyahay nabiga calaysay salaam waa darajooyinka la isku dhaafo weeye aakhiro marka saddexdii waxay noqotay ifshaa'u salaami wa it'aamu at-ta'aami was-salaatu bil-layli wan-naasu an-niyaam ahadiis badan buu nabiga calaysay salaam ku tilmaamay markii ugu horeysay Madiina uu yimi nabiga calaysay salaam dadka saa u soo urureen wuxuu yiri ayuha naas dad yahow dhageysta waa hadalkii ugu horeeyay afshu salaam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-naasu an-niyaam tadkhulu al-jannata bisalam jannada nabadgeliyo ku galeysaan saddexdaada sameeysan waa markii ugu horeysay Madiina uu imaado dadka saas uu sheegay marka saddexda arrimood ayaan isku boorinaynaa saddexdii horena waxa weeye kafaara gud oo wixii dambiya inay naga dhaqdo saddexdaana inaynu ku kasbano darajooyin inaynu ku kasbano waqtigu waa dhow yahay roobna waa soo socdaa salaadii maqribna waa dhowdahay haddii aan kale iga dambayn waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa kulankan galabta aynu isugu nimi masjidkan barxadiisa aan isugu soo baxnay reer Komarok ilaahay subxaanahu wa ta'ala kulan barakaysan inuu ilaahay ka dhigo ilaahay naxariistiisa iyo sakiinadiisa inuu ilaahay kulankan ku soo dejiyo malaa'igtiisa iyo naxariistiisa iyo sakiinadiisa inuu ilaahay nagu soo dejiyo ilaahay inta halka isugu timi ee khayrka soo doonatay yar iyo weyn ilaahu naxariiso ilaahu naxariis gaar ku soo deji ilaahu naxariis gaar ku soo deji ilaahu naxariis gaar ku soo deji ilaahu qalbiyadayada iimaanka ku sug ilaahu quraanka qalbigayga ku xiji ilaahu dambigan iyo dambiga waalidiinteena ku dhaaf naxariista gaar ilaahu dambigan iyo dambiga waalidiinteena ku dhaaf dadka xanuunsan ilaahu caafi dadka dhibaataysan ilaahu dhibka ka qaad kuwa kurbaysan ilaahu kurbada ka qaad qof walba waxba niyadiisa ku jira rag iyo dumar gabdho iyo wiilal yar yar iyo waaweyn maamooyin iyo abayaal qof walba niyadiisa waxba ku jira ilaahu waxa niyadiisa ku jiro khayrka ilaahu si wixii khayr waa ilaahu si dad baa dad ka xiran yahay maamo wiil ka xiran yahay ilaahay ha u soo daayo dadka wax ka xiran yahay cid ka xiran tahay ama xabsi kaga jiro ilaahay xabsigeeda uga soo daayo ilaahay ha u naxariisto faraj allah u furo kurbada allah ka qaado qof walba waxa uu jecel yahay niyadiisa ku jira allah siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigan iyo dambiga waalidiinteen ba ha dhaaf quraanka kariimka rabiica qulubina allah ka dhigo اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ذريتنا الله إصلاحيو قبلنا الله إصلاحيو دمركنا الله إصلاحيو هو ينكي يا بياش الله إصلاحيو ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Allah islaaxiyo wadankeena iyo dalkeena Allah islaaxiyo naxariis iyo barwaaqo iyo nabadgelyo Allah ku soo dejiyo dadkiisana Allah isjeclaysiiyo colaada iyo khilaafka iyo kala tagana Allah ka dhex qaado wixii khayr wada khayrka Allah waafajiyo wixii shar wada sharka Allah naga sharkooda Allah naga xijaabo khayrkana Allah na wada waafajiyo gabdhaha xijaabka Allah ku sugo waa faraxsanoo sida uu xijaabantiin xijaab fiican baa sida tan xijaabkiina Allah idin adkeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin ku sugo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhalinyaradana quraanka iyo diinta iyo iimaanka Allah ku sugo kuwa khayrka iyo saxaabadii iyo dadka saalixiinta ku dayda Allah ka dhigo fasaqada iyo dadka xunna kuwa aan ku dayan Allah ka dhigo ilaahay khayrka dhamaantay baahayna waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in